ku dhawaad ilaa 1500 oo qoys oo saameysay fatahaada webiga Shabeelle ayaa ka faa'iideystay deeq gargaar ah oo maanta loogu qaybiyay magaalada Jowhar. Wariyaheena Cabdiraxmaan Xuseen Wadani ayaa warkaasi nooga soo diray Jowhar. waa 1500 oo qoys oo ah dadkii ku waxyeeloobay fatahaada webiga Shabeelle ee magaalada Jowhar. si kalsooni ku jirto ayaa loogu qaybinayaa raashin isugu jira bur, bariis, sokor, saliid, baasto iyo timir. waxaana deeqdan raashinkani ay ugu timid boqortooyada Sacuudi Carabiya iyadoona loo soo marsiiyay hay'adda Saacid oo maalintii labaad maanta deeqdan ka qaybisay Jowhar. dadkii mudnaa in la gaarsiiyo deeqdan ayaa ka mahadceliyay raashinka ay heleen. waxaan halkan ugu mahadcelinaynaa walaalahayn dawladda Sacuudiga oo deeqdan soo gaarsiisay oo la yiraahdo Malikul Uliya deeqdan soo gaarsiisay walaalahayn waa ku mahadsan yihiin. ilaahay baa mahad iskale laakiin dadkii deeqdan dadkan u fidiyay ayagana waan u hambalyeeynaa. duqa magaalada Jowhar Saalax Muudey iyo madaxa howlgalka ee hay'adda Saacid Cabdullaahi Maxamed Xareed ayaa iyana mahadcelin iyo bogaadin u jeediyay hay'adda Saacid iyo shacabka reer Jowhar ee sida nabadgelyada ay ku dheehan tahay u qaatay cuntadani. daadadkii ka dhacay webiga Shabeelle oo sababay Hirshabeelle waxa mahad weyn iska leeyahay. waxa kale oo mahadda iska leh dadkii ka qayb qaatay sida mataqaanaa muassasada isku xirka xiriirka islaamiga ah. waxaan leenahay aad ayaad ugu mahadsantihiin deeqadan faraha badan. shalay tool waxa baxay 750 maantana waxa dadka la siiyay 1500 oo qoys. kusimaha gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Mudane Maxamed Cabdisheekh Xandow ayaa faahfaahiyay cadadda raashinkan loogu talagalay gobolka iyo goobaha kale ee la gaarsiin doono. inta qaybinayna cunadii maalintii labaad raashin gargaar ee ka yimid mamlakada Sacuudi Carabiya xafiiska Boqor Salmaan kaasoo ugu talagalay gobolka Shabeellaha Dhexe labadiisa tuulo ee dhibaatada gaartay raashin gaaray ilaa iyo 5000 oo tan kaasoo macnaheedu ahaa inuu 2000 la geeyo mahadaay 3000 jeer lagu qaybiyo. shalay waxaan qaybinay 1750 maanta waxaan qaybinay 1500. taliyaha ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle Korneel Xasan Dhicisow Xasan iyo wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Hirshabeelle Cabdimahad Qoorgaab ayaa iyagana gabagabadii ka hadlay goobtan ay ka socotay qaybinta gargaarka. maamulka gobolka waxa kale uu mahadcelinayaa hay'adaha amniga iyagoo ka qayb qaatay. annagana waxaan naga rabaa inaan dadka shalana waxaan ku gaarsiinay si nabadgelyo maantana waxay ku gaartay si nabadgelyo ay ku qaadahayaan. annagana waxaan naga rabaa dadkaas masaakiinta deeqda la soo gaarsiiyo inay si nabadgelyo iyaguna ay loogu qaybiyo guryahoodana ay kula tagaan. waxaana ballan qaadnaa annaguna ballan qaadaynaa oo aan kor taaganahay habeen iyo maalin inay si nabadgelyo ay ku gaarto. noo soo marsiiyay erga goboleedka islaamka OIC raashinkaas oo ay ayaguna sidoo kale intood qaybinayeen hay'adda Saacid. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Jowhar.